dagaalkan laascaanood ka socda markasta mucjisooyinka lagu arka waxa kamid ah dad soo duulaya oo haddana sii ordaya warisaaqo labada orod mid daaya dagaalkeeda kale idinka celceli la yahay maalin walba idinka soo duulaya haddana idinka sii cararaya markasto ay xabada bilaabato sidaas ayaa birida looga tooganaya maamulkii Hargeysa isaaq dagaal ma yaqaan dulmigana ma daayo dhulbahantuna mar alla iyo markii xabadu bilaabato waxaba ku soo daga wax aanan markii horeba waxaan bahaynba rasaastu waxay u tahay qayb dhiirigelinta kamid ah ciidankan jamaahiirta SSC war dhulbahanta dagaal ugu imo war isaaqo labada orod mid daaya war maanta maxaa dhacay saddex jiho ayay ka soo weerareen magaalada laascaanood laakiin sirtooda mar hore ayaa la hayay anigaaba xalay halkan ka sheegay jamaahiirtu SSC-na diyaar bay u ahaayeen waliba waxa la ogaa inta meelood oo ay xabada ka bilaabi doonaan saddexdii jiho ay saaka weerar ka soo qaadeen maxaa lagu dhigay xabadu sidaas ayay u socotaan isaaquna sidaas ay u sii ordayaan ilaa iyo xalay jamaahiirta SSC waxay aasayeen meydadkii ay ka carareen jabhadda SNM mar kastana sidaana ku dhacda ayaguna 10 ma qaataan kula wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida aad ka joogtaan marka hore ku soo dhawaada channelka Aftahan Production waa channel YouTube ah oo aad kala socon karto mar walba macluumaadada ugu dambeeya ee ka jira geeyiga Soomaaliya aniga waxaad igu imaanaysaa warar xaqiiqo ah waxaad igu imaanaysaa warar ka turjumaya meesha ay xaaladdu taagan tahay hadalka lama gambado muuqaalka markuu ku soo gaarana waxaan ka codsanayaa fiidowga inaad like saarto siina share garayso hadduu Allah idmo dagaal qaraar sida aynu xalayba ummadda Soomaaliyeed u sheegnay ayaa jabhadda SNM waxay ku soo qaadeen magaalada Laascaano magaaladiyo idilba maadaama ay jabhadda gacanteeda ka baxday jabhaddu waxay qorsheynayeen dagaalka saaka saddexda jiho ay ka soo qaadeen baan mid u dul istaagi doona hadduu Allah idmo qasaaraha jabka iyo halaaga gaaray jabhadda SNM dagaalku wali ma joogo ayaan kugula wadaagi doonaa hadduu Allah idmo siday u soo duuleen SNM-ta iyo siday u cararayaan wax meel isla gelaya haba yaraatee ma aha waliba waxaan ku arkay mucjisooyin yaab leh inta dagaalku u socday jabhadda SNM cidda tababarka siisa saaka su'aal baan ka qabaayay ma noocan tababar la isku siiyaa sida loo tooganayo iyo qaabka ciidan ay u yihiin aqligaygu waa diiday barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa hadduu Allah idmo dagaalka markasta ay ku jabayaanna maxaa salka oo ku haya maxaana ku kalifaya maalin walba inay soo duulaan maadaama ay dagaalada ku jabayaan guud ahaanba arrintaas waan ka hadli doonaa marxaladda magaalada Hargeysa iyo digniin aan u wado dadka aan doonayo maanta inay si fiican ii dhageystaan barnaamijka ku daawan doontaan hadduu Allah idmo dhamaantiin soo dhawaada muuqaalkan waxaad ka daawanaysaa channelka Aftahan Production ku soo bir channelka subscribe saaro calaamadda kamaralka furo si ayna barnaamijyada ku seegin soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan joognaa furinta hore waxaan la hadlayaa jamaahiirta daarood iyo Soomaaliyeed iyo dhulbahante naga sugaysa warka dagaal culus baa socda dawacooyinkiina waxay noogu jiraan gudurwa ilaahay mahadi gurmadkoodii mariya calafta ahaa iyo gaas dhagoolahoodii ka soo socday meesha la dhaho waxa weeye meesha la dhaho aynaba jidkaan u galay gowdaan ka saaray hadda waxay noogu go'doonsan yihiin gooja cadde dhinac walba waan ka fadhinaa labadoodii ciidan oo 40 guuto ka badan daawac iyo meyd bay meel ay marsadaan la yihiin waa haraadan yihiin waxaan rabnaa jamaahiirtooda inay ku bushaaraystaan guushaas hal nin ku fiigi maayo intaan noolahay ilaahay mahadi waan idin salaamayaa guul baan joognaa waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan waxa weeye reer gaalkacyo reer garoowe reer boosaaso iyo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ee meel walba qalbiga nagala jirta reer muqdisho waxa weeye tani waa soo celintii midnimada Soomaaliyeed iyo waxaan salaamayaa oo kale salaadiintii warsangeli ee sharafta badnayd ee maanta furinta nagula jirta waynu guulaysanay waxaan kaloo salaamayaa garxajiska waxa weeye guushayada dhowraya waxa weeye waan idin salaamayaa dhamaantiin waxa weeye waxaan u dagaalamaynaa waa midnimadii ummadda Soomaaliyeed waana mahadsantiin Abdullahi Bulwan aragtaa waa jabkii SNM oo aragtay mar haddaad i aragto jabkii SNM meel ku sii qoro ballantu waxay ahayd saaka duulankan inay soo qaadaan annaguna sirta waxaan ogeyn xalay ilaa shalay galab waynu nala soconay
jamaahiirta SSC waxaan ba u gudbinaba 6dii maqrinimo ee shalay wada kastay ku soo socdaan heegan baa loogu jiray marka su'aasha koowaad mar walbaba sirta jabhadda SNM yaa bixiya dadku markay xaq u taagan yihiin darbiyada la shaqeeya darbiyada qol gudihii waxay ku heshiyeen jamaahiirta SSC way la socdaan warbaahinta garab taagan SSC-na gud kastay galaan annagu diyaar baan u nahay waanu kula jirnaa dad baa waqti iyo lacag ku bixinaya in SNM sirtooda la helo waxaan ku soo gudbi doonaa 3 jiho ay dagaalka ka soo qaadeen xaalku halka uu marayo faahfaahinno dhameystiran dhinac walba hadduu alla idmo balse aan ka bilaabo waxaan digniin u dirayaa waxaan ka codsanayaa adiga inaad muuqaalkan geyso gruubyada WhatsApp-yada meel kasta qof kasta WhatsApp-kaada kugu jirana aad u share garayso Facebook-gaada aad dhigto gruubyada Facebook-gana aad geysaan muuqaalkan waxaan digniin u dirayaa shacabka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda beesha Daarood ee ku sugan magaalada Hargeysa 24 saac ee la soo dhaafay waxa ka bilowday magaalada Hargeysa beegsi dadka shacabka ah beegsi ay ka muuqato caro iyo waliba isirsifayn haddaad u dhalatay beesha Daarood oo aad haysato fursad aad uga bixi karto magaalada fadlan uga bax markastay ku soo jabaan dagaalka Laascaanood caradaasi waxay kala dul dhacaan shacabka u dhashay beesha Daarood ee ku dhaqan gudaha magaalada Hargeysa hadhow fariinta layma sheegin ha oran ka soo bax dhulka isaaq oo u degan yahay ka soo bax intay goortahay ka soo bax intay goortahay dhinaca kale Daaroodka kaliya maaha beegsiga waxay bilaabeen qof kasta oo Soomaali ah hadduunan isaaq u dhalan in Hargeysa lagu bartilmaameedsado ganacsatada u dhalatay beesha Hawiye ganacsatada Digil iyo Milifle qof kastoo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya beegsi bay ku bilaabeen waa ku bilaabi doonaan maaha way ku bilaabeen waxa layga soo wacayaa gudihii dhulka deegaanada beesha isaaq ay degan yihiin marka fariintan fadlan qof kasta oo muwaadin oo xalaal ah oo nadiif ah muuqaalkan ha ku share gareeyo WhatsApp-yada Facebook-yada gruubyada iyo profile-ada page-ka meel kasta dhiga hadduu alla idmo marka si ay dadkaasi u badbaadaan maxaa ku kalifaya waxay tahay sababtu waa sabab kooban dadkan waa jabeen way baabeen been idin sheegi maayo maalin kastoy dagaalka soo qaadaan tirada dhimashada aqligaaga diidaya 900 ay marayaan dhimashada markastoy weerar soo qaadaan ma 900 oo qofood waaraadyada ay ciidanka ku keenaan galabta 11 saac waxa la qaadaa iyagoo meydad wada 5 subaxnimo ciidankii nool 5 galabnimo iyagoo meyd ah maaha maalin iyo 2 maalmood 22 maalmood ay sida ku joogaan marka haday arintu ay 24 saac soo socoto ay gaadho waxay ka aarsan doonaan qof kasto koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda war dambiilad xaggooda ka tahay hadaa tahay qof koonfurta ka soo jeeda Daarood Hawiye iyo Dir macnaha iyo Digli Milifle wada jeeda Daarood iyo Hawiye iyo Digli Milifle fadlan isaga baxa dhulka beelweynta isaaq ay degan yihiin caradu mid la soo koobi kara maaha waliba dibad baxyo caraysan bay bilaabeen 48 saac la soo dhaafay wallahi baan idin sheegay ka soo baxa deegaanadaas maanta maxaa dhacay isaaqow sidaad u soo duushaan uma dagaalkeedin wiligay waa ii dhiman tahay dagaal noocan oo kala maalin walba 5 subaxnimo waxaad arkaysaa iyagoo waaraadyo lagu soo wado waxaad arkaysaa iyagoo hubara badan wato saaka 5 subaxnimaad ka mid ah waxaan islahaa magaalada Laascaano 10 bay ku dhigayaan laakiin nasiib darro sirta jabhadda SNM waxa mar walba soo gudbiya rag iyo dumar u shaqeeya jamaahiirta SSC iyo saxafiyiinta garab taagan war haday qol isku xiraan annaga darbiyada noo waramaya waxaynu ogeyn in saaka 3 jihood dagaalka ka soo qaadayaan shalay galab waynu la soconay xalay barnaamijkayga ku daawateen digniinadii aan wado lahaa warka iska ilaaliyo war ogaada mar horan jamaahiirta SSC u gudbinay waxay saaka weerar ka soo qaadeen wadada diyaaradu ay taalo oo diyaaradu ay ku dhacday Laascaano sidoo kale waxay ka soo qaadeen weerar deegaanka wadada la yiraahdo Gooja Cadde ku beegan halkaasna weerar ay ka soo qaadeen jiha kalena weerar bay ka soo qaadeen 3 jiho ayay jamaahiirta SSC jilbaha dhulka u dhigeen dagaalku waa kululaaday maxaabiis
nool hub aad u fara badan gaadiid dagaal gacanta looga dhigay jabhadda SNM-tana waxay ka carareen xitaa raashin sahay loo soo siiyey waxaan arkay sahaydii raashinka oo meel walba iska yaala gaadiid dagaal oo gacanta looga dhigo fara badan way jiraan wiilal qaylinayoo leh war Hargeysana laga soo afduubay war anaga xurmo ahayn xabadda markaynu ridnay war hooyaday baa dhul bahanta ah war xabadda haygu dhufanina saasa loo qabanaya waliba waxa ajiib ah oo anigu islaha ma dhici karto laakiin aan indhayga ku arkay askari kasta oo geeriyooda markii jeebabkiisa la fiiriyo buug ayaa ku jira ilaa iskuulkii la lahaa Hargeysa ku yaala ee diinta Christianka lagu dhigo ilaa buugaag taxta askartiya loo qaybiyo waa yaabaysa askari kasta buug yaa jeebka ugu jira anagana kitaabkii quraanka wadana tusbixiyanu saa wadana ayagana buuggii jeebka ugu jira ka sheekay dagaalku waa kululaaday hal eeg intii ka soo gashay agta la mariyay laba eegay hadda ka dagaalamayaan labadaasi eeg ayaanu isha ku haynaa labadaasi eeg xabaddu waa kululaatay meel waxay maraysaa ugu adkay jamaahiirtuna waxay ku soo beegmaysaa fiiri in maanta gacanta looga dhigo gaadiid dagaal in maanta qaar nool la qabto in dhaawacyadii ay ka carareen gacanta lagu dhigaan ula jeeda kuwa nool waa kuwa dhaawaca ah ilaahay baan idinku dhaariyay iyo awoodday ku soo howlgaleen isma keenayso waa gacan sareeyaan jamaahiirta SC waliba markan gurmad walaal bay heleen dulbahante markan gurmad walaal buu helay waxa weeye xabaddu markay sida u bilaabataba wiilasha dhalinyarada ah ee reer Sool wiilasha dhalinyarada ah ee u dhashay beesha dulbahante wallahi waligay ma arag dadka geesisan waligay ma arag dadkan dad lamida dagaalka kan aan qoriga wadan iyo kan qoriga wata waxaaba dagaal badan kan aan qoriga wadan askariga jabhadda SNM ka tirsan isaaqi iyagoo xabad ridaya loo imaanaa qoriga laga qaadanaya waxaan rabaa dadku inay mid ogaadaan dagaalka maanta wuxuu noqon doonaa maalmihii dee ugu dambeeyay weeye jabhadda SNM waana ku baabi'i doonaa waana qaraaraanaya dagaalka maanta bilowday duulaanka ay saaka soo qaadayna waa ku jabeen waxaa noo harsanna waa qayb yar waxaan idin leeyahay mar kale foojignaan jamaahiirta SC waa kor jabhadda SNM-na dee dagaalkii saaka saasay ugu fashilantay ishan ku haya marxaladaha waxaan soo gudbi doonaa insha Allah wixii ku soo kordha mar kastaba isha ku hay channelka YouTube-ka Aftahan Production si aynan barnaamijyadu marnaba ku sigin si aan kugu soo gudbiyo warbixinadii ugu dambeeyay khasaaruhu halka uu marayo xabaddu waa socotaa saraakiisha jamaahiirta SC waxay leeyihiin in yar inoo cagdhiga waxaan doonaynaa maanta in aynu soo wada afjarno iyagoo idil ishan ku haya marka laakiin waxaan idinku bishaareynayaa saaka dagaalkii ay soo qaadeen waa ku jabeen walina xabadii baa lagu wadaa waa ka soo warrami doonaa wixii ku soo kordha laakiin ma ballami karno haddaadan channelka YouTube-ka Aftahan Production subscribe saaran calaamadda kabilaalka furan intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo